kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadayaal kusoo dhawaada Shabeelle Media qodobada warka ku maqli doontaan waxaa kamid ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa gaaray caasimadda dalka Turkiga ee Ankara halkaas ayuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Turkiga Mawlud Cavusoglu. Master Anthony Blinken ayaa ka tacsiyay dhibaatadii baahneed ee dadkii tirada badnay ay ku dhinteen dhulgariiradii ka dhacay dalka Turkiga. Antonio Blinken ayaa halkaas u gaaray shirar waaweyn oo leeyahay dowladda wadanka Turkiga oo doonayay inuu kala hadlo dalal kamid ah gaashaanbuurta NATO inay ku soo biiraan oo Turkigu uu ka khafiifiyo cadaadiska ballaaran oo saarayo dalalkaas oo Sweden iyo Poland wadaman madowga Yurub ay kamid yihiin. wadanka Sweden ayuu Turkigu eedeeyay inay kooxo argagixisay ay dalka Turkiga ka dhan ah ay siiyeen amangalyo amba siyaasad dib u dejina kooxaha PKK iyo YPG oo Turkigu u yaqaano kooxo argagixiso oo dalka Turkiga halis weyn ku ah. Master Anthony Blinken ayaa ku sugnay caasimadda wadanka Turkiga Ankara ayaa shir jira la qabtay dhigiisa dalka Turkiga Mawlud Cavusoglu ka hor uuna loo gudbiyay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. halkaas ay ka wada hadleen xaaladaha quseeya labada wadan Mareykanka iyo dalka Turkiga. Turkiga ayaa cabasho weyn ka qaba hanaanka oo Mareykanku oo u maray wax isbedelashada amba wada shaqaynta Mareykanka iyo Turkiga ka dhaxay jirtay muddadii kontameeyada sanad gaaraya ay dalka Mareykanka iyo Turkigu ay hayeen kuwa xiriirkoodu wanaagsan yahay. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa u muuqda nin doonaya inuu dalka Turkiga gaarsiiyo meelo waaweyn oo higsi ballaaran dhinaca militariga ee dhaqaalaha wadankaas taasoo ay dalalka reer galbeedku inay wadnaha ay farta uga hayeen sanadihii ugu dambeeyay. Mawlud Cavusoglu ayaa kala hadlay diyaaradaha la calmaday ee F-35 ay Turkigu aad u danaynayo in la soo gaarsiiyo dalkiisa halka uu Mareykanku in badan ku celceliyay inuu Turkigu uusan iibsan gantaalada S-400 ee dalka Ruushka oo farsameeyo balse madaxweynaha Erdogan ayaa dhagaha ka fureystay baaqyada iyo cabashada dhanka Mareykanka uga imaanaysa wadanka Turkiga. gantaalada Mareykanka ee Patriot-ka ayuu Turkigu in badan ka dalbaday balse Washington ayaa u muuqatay mid aan ka jawaabin dalbashada amba codsiga ka yimid Ankara ayaa u aragtay Washington mid laba wajiileynaysa doonaysana inuu Turkigu ahaado mid fadhida ciidamahan iyo dhaqaalahaanba balse wadamadan gaashaanbuurta NATO kan koobaad iyo kan labaad ay ka yihiin awoodda military. madaxweynaha Turkiga ayaa dhankiisa la kulmay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken oo ku sugnay Ankara. Anthony Blinken ayaa u socdaali doono caasimadda Greega ee Athens halkaas oo ra'iisul wasaaraha Greega kula kulmi doono sida wararku sheegayaan iyo wasiirka arrimaha dibadda wadankaas Greega. dowladaha Turkiga iyo Greega ayaguna kuwa isku cunaduuban oo isku haysta xaalada waaweyn ee labada dal qusaysa. dowladaha Greega Turkiga ayaa u arka Greega cadow balse Mareykanku uu doonayo inuu dhexdhexaad iyo xaaladana ay qaboojiyaan labadaas wadan. madaxweynaha Mareykanka ayaa isaguna ku sugan qaaradda Yurub halkaas oo uu safar ku marmarayo dalkaas Ukraine taageero caalami ahna oo u weydiinayo midowga Yurub iyo dalalka doonaya inay hankool fara leh ay uga hortagaan dalka Ruushka oo ku sheegay inuu far dheeraad ku noqday dunida qarbudaad baahan oo ka wado wadankaas Ukraine. Antonio Blinken ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu ka xun yahay dhibaatada baahan ee ka dhacday dhulgariirkii ku dhuftay wadankaas ay ku dhinteen 32,000 oo rayid ah oo dalka Turkiga iyo muwaadiniin wadanka Turkiga u badnaay. dowladda Mareykanku oo sheegay inuu dhambaal taxsiya oo ka wadiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku sugan asagu naftigiisa qaaradda Yurub. dowladda Turkiga ayaa u muuqata midba marka dambeysa iyadoo awood ama quwad gaar ah ee gobolka inay noqoto doonaysa.
daawadaashana qiimaha badan warkayna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaana Allah daawadayaal.